السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبتنا قال سو دوادا وقيبت اللباد قصة النبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. نبي يوسف waxa uu ku yiri kii uu filay inuu badbaadayo inuu xusuusiyadkiisa agtiisa balse waxa uu siiyay shaydaan arinkiina waxa uu dhacay sida nabi Yuusuf ugu fasiray. nabi Yuusuf waxa uu baaqi ku sii ahday xabsigii waxaana la dhahaa uu yaraan 7 sano ayuu ku sii jiray xabsiga isagoo u xiran dambi la'aan. maalin maalmaha ka mid ah ayaa boqorkii magaalada riyooday waxaanu arkay 7 sac oo burburan oo ay cunayaan 7 sac oo caata ah. sidoo kale waxa uu arkay 7 sabul oo cagaaran iyo kuwa kale oo abaar ah. markaasuu boqorkii argagaxay oo warsaday dadka ka ag dhawaa kana dalbadan inay u fasiraan riyada balse waxay dhaheen dadkii waa riyo aan run ahayn mana naqaano sida loo fasiro riyada. ninkii ka badbaaday dilka ee la xirnaa nabi Yuusuf ayaa maqlay oo ku dhahay boqorkii anaa garanay nin inoo fasiro riyada ee idira anaa soo warsane. ninkii waxa uu tagay nabi Yuusuf waxaan uga warramay riyadii. nabi Yuusuf waa u fasiray isagoon wax shardi ah ku xirin waxaanu yiri waxaa imaanaysa 7 sano oo barwaaqo ah waxaana ku xigaysa 7 sano abaar ah ee waxaad beeraha ka soo goostaan daaya oo keydiya waxaad cuntaan mooye intaa kadib waxaa imaanaysa sanad ay dadku barwaaqo noqonayaan. markii boqorkii loo sheegay fasalkii riyada ayuu dhahay la soo daayay Yuusuf balse nabi Yuusuf waa diiday inuu ka soo baxo xabsiga ilaa ay bari yeelaan haweenkii dhagriyay. markii haweenkii gacmo isgooy loo tagay iyo xaaska casiisku ayay dhaheen iminka ay xaqiiqda timid annaga ayaa nafteena la doonay waxaanu ka mid yahay isagoo kuwa runta sheegay. markaasaa warkii ku faafay magaalada oo la ogaaday in Yuusuf uu bari ka yahay wixii loo xiray. boqorkii waxa uu dhahay ii keena Yuusuf ha ii noqday la taliyahiga. markaasuu nabi Yuusuf dalbaday inuu ka dhigo mas'uulka qasnadaha sababtoo ah waxaan uu leeyahay cilmi. nabi Yuusuf oo kal hore ah adoon la kala gato maanta waxa uu ka yahay waddanka Masar wasiirka maaliyadda waxaana gacantiisa ku jirta xukunka Masar iyo dhaqaalaheeda. markay gaartay 7 sano abaarta ahayd ayay dhibtii gaadhay nabi Yacquub iyo ehelkiisa oo deganaa Falastiin. kadibna waxay ubadkii nabi Yacquub maqleen in xaakimka Masar yahay nin aad u fiican oo dadka u roon. markaasay u safreen Masar si ay ugu soo adeegtaan. markii nabi Yuusuf walaaladii soo galeen Masar ayuu gartay Yuusuf walaaladii laakiin iyagu maysa garanayn. kadibna waa wareystay oo ku dhahay ehelkiin yaa idinka maqan. waxay dhaheen waxa naga maqan walaalkiin Benyamin iyo aabahan Yacquub. markaasuu u miisay cuntada si fiican kadibna waxa uu faray shaqaalihiisii inay badeecadooda u geliyaan rarka dhexdiisa iyagoo aan dareensanayn. nabi Yuusuf waxa uu ku yiri walaaladii soo uma jeedan inaan idinkugu miisay si fiican marka dambe wax cunto agtooda kuma lihidiin ilaa aad ii keentaan walaalkiin. Yuusuf walaaladii way baxeen oo ku noqdeen Falastiin iyo aabahood. markaasay u warrameen oo dhaheen aabbo waa naloo diiday in aan ka soo adeegno doorka dambe Masar ilaa aan kaxayno walaalkiin Benyamin. markay rarkii fureenna waxay ka dhex heleen badeecadoodii oo loo soo celiyey. markaasay aabahood ku adkeeyeen in uu ku aamino walaalkood Benyamin. nabi Yacquub isaga oo murugo ka muuqato ayuu ku yiri ma waxaan idinku aaminaa sidii aan kugu aaminay Yuusuf. haddaad rabtaan inuu idin raaco ballan iga qaada inaad ilaalinaysaan. kadibna way ka ballan qaadeen. markay ballantii ka qaadeen aabahood ayaa nabi Yacquub ku dhahay wiilashiisa idinka oo wada socda ha ka gelinina magaalada hal albaab ee ka kala gala albaabo kala duwan. kadibna way baxeen oo gaareen Masar. markay soo galeen ayuu nabi Yuusuf la hadlay walaalkiis ka yaraa ee Benyamin iyagoo dareensanayn waxaanu u sheegay inuu yahay walaalkii Yuusuf. nabi Yuusuf waa siiyay cuntadii kadibna waxa uu faray mid ka mid ah shaqaalihiisa in uu geliyo rarka saaxiib boqorka ee wax lagu miisayay waxayna geliyeen rarka walaalkii Benyamin. markii rarkii u dhammaaday oo ay baxeen ayaa loo yeeray oo la dhahay safarkiinaasi waxaa tihiin tuugo oo waxaan weynay saaxiib boqorka ee waa maxay abaalmarinta ciddii laga helo. waxay dhaheen ciddii laga helo ayaa loo ciqaabi waxayna diintooda ku banaaneed in ruuxii tugnoo la yimaada laga dhigo addoon. kadibna waa la baaray rarkii oo dhan markaasaa laga soo saaray rarkii Benyamin. walaaladii waxay dhaheen haddii ay cid waxaday waxaa hore u xaday walaalkiis. nabi Yuusuf waa maqlay waxay lahaayeen markaasuu naftiisa ku yiri waxaa tihiin dad shaqaalayaal ah. kadib markii la kaxaysay Benyamin ayay ku dhaheen boqorow waxa uu leeyahay aabe da'diisu weyn tahay ee mid kale anaga naga mid ah qaado. nabi Yuusuf waxa uu ku dhahay ciddii laga helay ayuun baa la kaxaysan. markay ka quusteen ayay isku noqdeen. markaasaa kii ugu weynaa dhahay ma xasuusataan inaad aabe ballan ka qaadeen iyo wixii aan ku samayno Yuusuf eebbe ayaan ku dhaartee dhulka kama tagayo ee u taga aabihiin oo ku dhaha
wiilkayga waxbuu xaday, annaguna cilmi umaanan lahayn, waxaan sheegaynaa run ee waxaad weydiisaa safarada nala socday. Waxay u tageen aabbahood una warrabeen wixii dhacay. Kadib nebi Yacquub waxa uu yidhi, waan sabri, waxay u dhowdahay in Eebbe ii keeno Yuusuf, Benyamin iyo walaalkoodii weynaa. Nebi Yacquub waa ina beelay murugo iyo oohin darteed. Kadib waxa uu faray wiilashiisii inay ku noqdaan Masar oo baadi goobaan walaalahood, aanay quusanin. Kadib way soo baxeen iyagoo soo qaaday badeecadii si ay u siiyaan xaakimkii Masar oo ah nebi Yuusuf. Markay soo galeen ayay madaxa faruuriyeen oo dhaheen, boqorow, waxaana taabtay dhib annaga iyo ehelkeennaba, waxaana kula nimid badeecad aanad naga aqbalayn ee noo sadaqayso. Eebbe waxa uu jecel yahay dadka sadaqada bixiye. Nebi Yuusuf waxa uu ku yidhi walaaladii, ma xasuusataan waxaad ku samayseen Yuusuf iyo walaalkiis markaad jaahiliinta haydeen? Markaas ayay wada dhaheen, adigu ma Yuusuf baa tahay? Nebi Yuusuf waxa uu ku yidhi, anigu waxaan nahay Yuusuf, kanina waa walaalkay, waxaana noo gargaaray Eebbe weyne. Waxay dhaheen, waxaa naga kiin doortay Eebbe, waanan gafsanayn. Waxa uu ku yidhi nebi Yuusuf, canaani korkiinna may ahaanin, ee Eebbe ha idin dembi dhaafo, isagaa dembi dhaaf badan ahe. Kadib waxa uu u dhiibay qamiiskiisii oo ku yidhi, ku tuura wejiga aabbahay, indhaha way u soo laaban, iina keen ehelkiina dhammaantood. Markii safarkii baxay ayaa nebi Yacquub yidhi, waxaan heli caraftii ama dabayshii Yuusuf calayhi salaatu wasalaam. Haddii aydan idhahaynin waad xanuunsanaysaa. Ubadkii uu awooga u ahaa waxay ku dhaheen nebi Yacquub, Eebbe ayaan ku dhaaranee waxaad ku sugan tahay baadi cad. Kadib safarkii ayaa yimid, waxaanay ku tuureen qamiiskii wejiga aabbahood. Aragtidii way u soo laabatay. Nebi Yacquub markaasuu dhahay, miyaanay idinku odhan waxaan ka ogay xagga Eebbe waxaydin ogeyn? Waxay dhaheen, aabbow, noo dembi dhaaf farso Eebbe, waan gafsanayne. Nebi Yacquub waa u ballan qaaday inuu u dembi dhaaf farsado ubadkiisii. Kadibna waxay u safreen dhammaantood dhulka Masar oo u sujuudeen nebi Yuusuf. Markaasuu nebi Yuusuf ku dhahay aabbihii, aabbo, waa taa fasalkii riyadii, Eebbahay waxa uu ka dhigay run. Nebi Yuusuf iyo ehelkiisa waxay ku noolaayeen nolol barwaaqo ah dhulka Masar. Qisada nebi Yuusuf waxa weeye qisooyinka ugu macaan ee Qur'aanka Kariimka inooga warramay. Nebi Yacquub iyo aabbihii Isxaaq waxay ku aasan yihiin dhulka Falastiin. Sidoo kale nebi Yuusuf waxa uu ku geeriyooday Masar, laakiin waxaa la dhahaa waxaa loo qaaday meydkiisa dhulka Falastiin. Kuwii wax ku qaatay Eebbe ha inaga dhigo.